ilaahay baa keligii mahadle dhalinyarada waayeelka waxgaradka haweenka siyaasiyiinta salaadiinta iyo cid kastoo munaasabadan ka soo qayb gashay aad iyo aad ayaan u salaamayaa waxa caawayay farxada oo hortayda ka soo muuqda abtigay maxamuud maxamed nuur faahiye liibaan oo korintayda iyo barbaarintayda qayb weyn ku lahaa inta markaan ka imaado hoolkan waxa quruxda u yeelayaa maaha kuraasta dhex taala iyo leedarkan wada walwalaya korkiina suran ee waxa macnaha uu sameeynaya waa idinka sida ay soo sharafteen Allah idin sharfa maadaama culayska ugu weyn inuu hor yaala caloosheena inagu hayso و24 saacadood ee habeenkii maalinta ku jirta 3 goor oo kamid ah caloosheenu tahay calool baahan waxay u baahan tahayna cid kale aan uga sii baahanahay waa muhiim inaynu xaqiiqda istireensiino maasaduna waa baraarug shaqaniyo baahan biyo haysato ooman beera qodotoon maarmin xoolo badan lahoo cayda bad lahoon kalluun dheersan barigeeda dihindhaadi shidaalkeedu buux dhaafay bilaalana ka soo saara buuradda haba hoos joogta gaajana bastee taagan waa sida bahdeennaas allow baydadarodkeeda iyo balanbalguurkeeda sahanlii boqolkeeda iyo boholo jiirkeeda bancilaa kufuruddeeda iyo baraxdayowgeeda intuu baajo socodkeeda yaa nageeye bixideeda u bidhaasho libinteeda burjigiyo awooddeeda bulshadayda garansiiya intay buuqalooskiisa bacad ugu haraadaysay intay beel difaaceeda bunduqa u cabaynaysay intay booli doondoonka balloor kala qorsheynaysay inta ay bagaash xoog leh bada uga talaabaysay saliidaha bijiin yaala ku bedelasay cuudkeeda saxaraha rag baa baaday tacab geliyay oo beeray dhulka barafku jiifjiifo nin leh baa barwaaqaystay adna baladka khayraad iyo ciidda barakaysan tiyo eebba kugu beeray miyaa baaqa garan weyday mise garashadaa baaba miyaan talaba kuu biirin beri hore lagaa guuriye dib u dhaca haddaad baastay iyo boodhka kiciwaaga qorsho xumada boqol keentay iyo been isugufaanka shahaadada birtiya laynta ku hantiday isbaabiinta biladaha haddaad qaaday baryadiiyo ikaalmeeda hay-adahan ku soo booqday baabacallo hoosmeerka way kugu bahdilayaane birmadkiiyo guclayntoodu waxiluu ku barayaaye sahanbaashiraadoodu waa baraka xeel dheere ummad yahay bustaha tuura soo baraarugoo toos bini'aadan sugiddiisa baryadiiyo barta ay ka kici weyday bayda ay ka socon weyday haddaan taabto boogteeda runta kay ku baran weyday beentana ku nici weyday baadideeda celin waaye baylahdeeda jiri waaye wadeecada ka biyin waaye basanbaas ka rari waaye meel biyele furi waaye ee shicibku buunbuunshay shilkiisana ka bixi weyday siyaasiga bulshadu eeday sow beledka aan joogno barta laga helaa ma aha aqoon-yahan barkuma taal ah wax isbiday waxbana biirin loo dhigay cilmiga bayrta nuhur sida digrii beena buug sitoo miidhan sow beledka aan joogno barta laga helaa ma aha barbaar hurudo oon toosin caqligana bar laga haysto la beddelay garaadkooda bese hoo iswada dhiibay sida birosallaameedka hadba buundo lagu dhaafo nin danlihii ku koro buurta iyaguna rogtii boodhka rajabeel la sara taagan sow beledka aan joogno barta laga helaa ma aha boqor iyo salaadiintu mar bay bili lahaayeene birdada ma lahaayeene baaqa nabadda sideeni haddii mawmudo bixin waaye waxa badan ismagacowga kuwa boodhar soo qaatay caana boodho soo laaqday isboqroon bahdii dooran
odaynimo birtii dhaafshay sow beledka aan joogno barta laga helaa ma aha culimada badhkood maalka si badheedha ugu xaytay culimada badhkood maalka si badheedha ugu xaytay u banbaxay adduun doonka ee barashadii diinta $100 lagu geeyey sow beledka aan joogno barta laga helaa ma aha dhakhtar qaali lagu booqdo ninka baahan sii baadha dadka ruux bukoo liita isagoon ka bogan eelka baadhislii kiniin siiya miskiin beerku kala yaallo bas ahoo darbada hayso haddii 100 loo waayo nafbixiisa dhowraynin sow beledkan aan joogno barta laga helaa ma aha ganacsada wakhtigu beeray ilaahayna nagu beegay warshad baahi lagu reebo ka binayn arliga hooyo dalkiisii baqsee liiday bugcad iyo ka dhigay suuqa bacda saylad lagu iibsho danyartoo badhkoo taano baystayn wax jira haysan si xirfan ku sii biirsha sow beledka aan joogno barta laga helaa ma aha waxaan baydka suugaanta kaga baxay bulshaywaano bahda dhagaha maqalkaaga haddaan bixisa kaa awdin dad qabaan wax kuu sheegay basarkiiyo wax araggaaga haddaan khayrka laga baabin kuu soo bandhigay eelka gobonnimada binadeeda iyo biixiyaha tiirsha wadartay ku badisaaye wanaagay ku bilataaye barkhaday ku tarantaaye badhitaara guushiinna jidka wacan ku soo baydha boqorkiinna tala saarta haddii kale bulshoy heedhe baaxad caydhow marka basarku kaa guuro ee loo banbaxo ceebta nolol heer baktiya taagan idinkoo basbeel jooga beritiya difaaleeya maansadu intaas horta ku egta waan jeclaa inaan sidan si ka ballaaran idinla hadlo waan filayaa xagga hore inuu ka habsaano inaan waqtigiina ilaaliyaa waa ugu weyn iyo qiimaha ugu weyn ee siin lahayd waqti ba ahayd waqtigiina waa ay siiseen sida ay siiseen bankiina u ilaalinayaa waa sababahan u soo gaabiyey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan xasan dhuxul saalax